بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الخامس شرطي سناد صلاة شروط هذه كم استقبال القبلة قبلة ولا قابلية وهي بصدر لابتة في القيام استاج والقعود فردقة qofku markuu istaag ku tukanayo waa inuu laabtiisa oo qiblada qaabiliyo hadduu fadhi ku tukanayo laabtiisu waa inay qiblada qaabilsan tahay wa bil mankibayni labada garab waa inuu qaabiliyo iyo wa mucdamil badani badanka intiisa badan fii gayrihimaa gayri alqiyaami waalqucuud wey istaaga iyo fadhiga wixii ka soo haray oo hadduu jiifka ku tukanayo yacni garbihiisa iyo badankiisa inta badan waa inay qiblada qaabilsan yihiin ilaa ida ishtadda alkhawfu cabsidii inay darnaato mooyaane khoofkii inuu darnaado mooyaane khoofkii almubaaxu bannaan ah oo almubaaxu macnaha waxaa looga jeedaa hadduu qofku dagaal galo dagaalkaasna dagaal yacni u bannaanee lagu dagaalami karo uu yahay waa yahay markaa walam yumkinhu istiqbaalna uusan u suuroobeynin fayusallii wuu tukanayaa kayfa amkanahu si alla sidii u suurowduu u tukanayaa sidii u suurowduu u tukanayaa walaa icaadata calayhi soo celina ma jirto way la soo celinayo salaadaas. asaadisu shardiga lixaad an yakuuna almusalli qofka musalligoo tukanaya musliman muslim waa inuu yahay. asaabicu kan toddobaad an yakuuna caaqilan waa inuu yahay qof wax garanayo caaqila waa inuu yahay. falmajnuunu kii waalnaa iyo wasabiyu sabigii alladii sabigaasoo lam yumayiz aan wax kala garanin laa salaata calayhimaa salaad dushooda ma ahaani walaa tasacu minhuha kamana ansaxayso. athaaminu shardiga sideedaad an takuuna almar'atu haweenaydii waa inay tahay naqiyatan mid daahira waa inay tahay min alxaydi xayl waa inay daahir ka tahay iyo wanifaasi nifaas xayl iyo nifaas waa inay daahir ka yihiin baa raba haweenku. falxaa-idu qofkii xaylka qabtay iyo wanufasaau midii umusha ahayd laa tasixu salaatuhumaa salaadoodu ma ansaxayso walaa qadaa calayhimaa qadana dushooda ma ahan oo gabadha mar haddayna daahir ahayn salaada kuma waajibayso mar hadday dhiig qabteen hadday umul tahay sidoo kale wey marka salaadu kama ansaxayso wax qado oo laga rabana ma jiro. fain dakhala alwaqtu waqtigii hadduu galo walxaal hiya iyadu daahiratun ay daahir tahay iyadoo daahira hadduu waqtigu u galo oo fadara-a calayha alxaydu dhiig baa ku yimid marka hore daahir bay ahayd waqtigii baa gala iyadoo daahira fadara-a calayha alxaydu dhiig baa ku yimid kusoo dariyey wanifaasu dhiig umuleed baa ku yimid oo way umushay bacda an madaa markuu tegay bacdigeed maa yasacu wax u waasac noqonayo waajibaati tilka salaad salaada ayada a waajibaadkeedii iyo arkaanteedii waqti ku filan ayadoo tukan karto salaadii oo aan tukanin ayuu dhiiggii ku dhacay wajaba calayhaa qadaa-uhaa salaadaa inay soo qadaysaa waajib ku noqon maxaa yeelay dacati bay samaysay oo haddayna salaada daahiseen way tukan kartay waqtigaas marka waqti ay salaadii ka tukan karto oo salaada u waasac noqon lahayd markii lasoo dhaafay ayuu dhiiggii ku dhacay salaadaa waa laga doonayaa qadaheeda inay soo qadaysaa la rabaa. waida nqadaca alxaydu dhiiggii hadduu ka go-o wanifaasu nifaaskii baa ka go-ay oo umushibay yani dhiiggeedii baa ka go-ay walam yacud mana soo noqonin fain kaana fii waqti subxi salaada subax waqtigeeda hadduu yahay aw iduhri salaada duhur waqtigeeda hadduu yahay aw ilmaqribi ama maqribka hadduu yahay walow baqiya hadduu ka haro minhu min alwaqti qadru maa yasacu allahu akbar allahu akbar intii laga yidhaahdo keliya waqtiga ka dhiman uu baxayba markaas wajaba qadaau dalika alfard salaadaas ayada oo markaas uu dhiigu ka go-ay oo allahu akbarta inta la ay ka dhiman tahay taa unbay soo qadaynaysa. hadday salaada subax oo allahu akbar intii laga yidhaahdo ay ka dhiman tahay baa dhiiggii ka go-ay
salaadii duhur oo allahu akbar intii laga yidhaahdo ay ka dhiman tahay baa dhiiggii ka go-ay. salaadii maqrib oo intii allahu akbar iyo salaadii laga xirta keliya ay ka dhiman tahay ba waqtigii waba yaa dhiiggii ka go-ay. salaada ayada way soo qadaynaysaa, ayada salaada bes unbay soo qadaynaysaa, tu kaloo ka horeysa kuma darayso. wain kaana haduu yahay fii waqti lcasri, waqtiga dhiigu ka go-ayo haduu yahay fii waqti lcasri, casrka waqtigiisa, aw ilcishaa, walow baqiya haduu ka haro minhu min alwaqti qadru maa yasacu allahu akbar, wajabu qadaau dalika alfard, faradkaas asagaa way soo qadaynaysaa. waa casirka iyo cishahaas. salaada casirka markay ka dhiman tahay intii allahu akbar laga yidhahdo keliya, waa intii salaada laga xirtaa waqtiga dhan baa ka dhiman, waana baxay waqtigii. salaada cishaha waxaa ka dhiman intii salaada laga xirta un allahu akbar laga yidhahdo, markaasaa dhiigu ka go-ay. dee goormay qabaysanaysaa, goormay dahaaro qaadanaysaa, goormay xiranaysaa? qof daahir ahoo diyaar ahaa oo dahaaro qabay intuu allahu akbar ka yidhahda waqtiga dhan ba ka dhiman. salaadaas way soo qadaynaysaa. hore salaada ayadaa way soo qadaynaysaa, waa cishaha iyo casrkaas. waladii qablahu, salaadii kaloo ka horeysayna way soo qadaynaysaa. oo casrki maxaa ka horeeyey? duhur baa ka horeeyey, wahuwa duhru aw ilmaqrib. cishahana maxaa ka horeeyey? maqrib baa ka horeeyey. salaadaasna way soo qadayn, tii ka horeysayna way soo qadayn. oo sababtu waa maxay? labada salaadood waa laisku jamcin jiray. casrka duhurkao ka horeeyaa lagu jamcin jiray, jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir. marka tii dambe, salaadii dambe, labadii salaadood laisku jamcinayay, midii dambe hadday waajibtay, tii horena way waajibaysaa, labada way soo qadaynaysaa. maqribka iyo cishaha waa lasku waa laisku jamcinayay. cishihii buu yuu dhiiggii ka go-ay, soo maaha? yani qadarkiisi wax yar ay ka dhiman tahay intii laga xirta salaada. salaada cisho way soo qadayni, maqribkii ka horreeyeyna way soo qaday. waa labadaa salaadood yaa midda ka horreysa lagu soo daraya. laakiin hadday tahay duhurka, hadday tahay wuxuu ka go-ay oo allahu akbartu ay ka dhiman tahay, ama hadday tahay maqribkii, ama hadday tahay salaadii subax, salaadaas ayada umay soo qadayni, midii ka horreysa ma soo qadaynaysa. leanna duhur salaada ka horeysa, subaxa ka horeysa laguma jamciyo. salaada subax cishaa ka horeeye laguma jamciyo, cisho iyo subax layskuma jamciyo. maqrib buu ka go-ay, maqrib casr baa ka horeeye, salaada casr iyo maqrib layskuma jamciyo. marka salaada ayada un baa waajibi. salaadii midii ka horeysay lagu jamcin jiray waa cisho iyo maqrib. cisho maqriboo ka horeeyaa lagu jamciyaa, casrna duhuroo ka horeeyaa lagu jamciyaa, soo maha? hadduu cisho iyo casr ka go-ana, cishihii iyo yani casrkiina waa waajibaya, salaadii ka horeysana waajibaysa. waa sida. ataasicu, shardiga sagaalaad oo salaada shuruudeeda ka mid a, an yactaqida, qofku waa inuu ictiqaadiyo, ana salaata salaada, almafruudata ee la farad yeelay, allatii yusaliha uu tukanayo, fardun inay tahay. salaadaa faradka uu tukanayo qofku waa inuu faradnimo, waajibnimo waa inuu ictiqaadiyo. fain ictiqadahaa sunatan, sunna hadduu ictiqaadiyo, salaadatan la tukanayo faradka aba inay sunno tahay buu ictiqaadiyey. duhurkii wuxuu ictiqaadiyey inay sunno tahay. ow khalaa qalbuhu, qalbigiisa waxaa ka maqanbo can ilcaqiidatayni, labada caqiidabo. labada caqiido waa maxa? faradna ooma ictiqaadinin, sunnana uma ictiqaadinin. ow amase tashakaka wuuba shakiye fi lfardiyati, salaadan la tukanaya duhurka ma farad baa ma sunna, uma kala cadabo, shaki baaba ku jiro, lam tasixa salaatu. saddexda suurabo, hadduu salaadii faradkay sunno u ictiqaadiyo, hadduuna waxbaba ictiqaadinin, sunno iyo farad midna ictiqaadin, qalbigiisaba kuma jirto, ama uu ku shakiyo ma farad baa ma sunna, lam tasixa. saddexdabo salaadiisu ma ansaxayso. alcaashiru, shardiga tobnaad, anlaa yactaqida, waa inuusa ictiqaadinin, ruknan rukni oo min arkaaniha, salaada arkaanteeda ka mid a, sunnata waa inuu ictiqaadin. salaada arkaanteeda way noo imaan doonaan. arkaanu salaad 19 buu hadda ka dhigi doona kitaabku. arkaanu salaadkaas waa inuuna mid ka mida sunno u ictiqaadin, oo takbiiratu ixraamkii baa ka mid a, faatixadii baa ka mid a, rukuucii baa ka mid a, sujuudii baa ka mid a. arkaantii salaadu ay lahayd ee waajibka ahayd waa inuuna sunno u ictiqaadin. faman ictiqadahaa, qofkii ictiqaadiyo furuudan faradyaal, furuudan qofkii u ictiqaadiyo, ruknigii arkaantii buu farad u ictiqaadiyey,
dee farad iyo rugni waa isku mid un ow khalaa qalbuhu qalbigiisii waxaaba ka khaali noqday can ilcaqiidatayni faradna uma ictiqaadinin sunnana uma ictiqaadinin ow tashakaka fi lfardiyati arkaantan ma farad baa horta ma waa sunno salaadu inay farad tahay waa ogyahay laakiin arkaanta dhexdeeda dhacaysa rukuuxa iyo sujuudda iyo faatixada iyo ma farad baa ma sunna wuu shakisay aw ictiqada sunnatan min sunani salaati fardan ama sunno sunnooyinka salaada ka midu waajib u ictiqaadi atixiyaadka hore waa sunno markaas wuxuu ictiqaadiyey uu niyeystay atixiyaadka koobaad waa waajib buu niyooday waaba waajib yuu ictiqaadiyey saxat salaatu saddexda suuraba ama afarta suuraba qofkii farad arkaanta salaada mid ka mida qofkii sunno u ictiqaadiyo ama farad u ictiqaadiyo ama waxba uma ictiqaadinin iyo qofkii sunno salaada sunayaalkeeda ka mida farad u ictiqaadiyo saxad salaatu salaadiisa waa ansaxaysa saddex suuro oo haddaad sunno farad u ictiqaadiso darajadii baabad kor usii qaaday sunay ahayde waajib baadba kasii dhigtay waxba kaa dhibi mayso arkaanta salaada ku jirta waa farad haddaad marka aada garan weydo ma farad baa ma sunna ama aada yani sunno u ictiqaadisana mar haddaad salaada inay faral tahayba aada og tahay ruknigan haddaad sunno u ictiqaadiso ama aad wuxuu yahay garan weydo taa salaada waxaa umadhay saxad salaatu wey laanna salaada weyn bay soo gudagelayaan mar haddaad duhurkii inuu farad yahay baad ictiqaadsan tahay arkaanta dhex dhacaysa salaada dhexdeeda hadduu qofku garan waayo salaadiisa waa ansaxaysa alxaadi cashara kii kow iyo tobnaad waa shardiga kow iyo tobnaad ijtinaabu mubdilaati salaad salaada waxa burinayo alaatiyati ee noo imaan doono waa inuu ka ilaaliyo fii jamiici salaatihi salaadiisoo dhan mubdilaadka waa inuu ka ilaaliyo waxa burinayo athaani cashara shardiga labiy tobnaad macrifatu kayfiyatiha salaada kayfiyadeeda waa inuu yaqaano sida loo tukanayo qofku waa inuu yaqaano bi-an yacrifa waa inuu garanayo acmaalaha salaada acmaasheedii iyo wa tartiibaha tartiibkeedii kamaa yaatii sida imaan doonto salaada siday u kala horeysay acmaasheedii iyo sida loo tartiibiyo waa inuu garanayo qofku wa ama arkaanu salaad shuruudii salaada waan kasoo baxnay 12 wa ama arkaanu salaad salaada arkaanteedii fa 19 19 way rubac hore waxaan kusoo barnay oo najah hada waa salaadkii kan safiinu laba qaybood wey najah iyo salaad sooma najah waxaan kusoo marnay arkaanu salaad inay tahay 17 17 kan wuxuu leeyahay waa 19 sujuudihii oo hal mar uu ka tiriyay mid hore aan soo mareynay iyo laba u kala tirinaya kala qaadaya marka 19 buu ka dhigay al-awwal rugniga koobaad an-niyatu niyawa bil qalbi laga niyoodo inama al-a'malu bin-niyat amalka oo dhan niyo ku ansaxaya niyaduna maxalkeedu waa xagee al-qalbu way qalbiga laga niyooda fa yuhdiru fi qalbihi qalbigiisa wuxuu ku soo xaadirinaya ficla salaada inuu sameeyo wa yu'abbaru anhu waxa laga cabiraa bi fardin salaada ficilkeedii farad baa laga cabiraa wa yuhdiru fihi qalbigu wuxuu hadana gelinaya markuu salaada galayo tacyiinaha inuu cayino salaada hiblo midda aad tukanaysana qalbigaad ku qabanaysa wa yu'abbaru anhu waxa laga cabiraa bi dhuhri aw al-'asri aw al-maghribi aw al-'isha aw al-subh tacyiinku waa inaad hiblo tiraado dhuhur hadaad tukanayso dhuhur waa inaad qalbiga ku qabato salaad farad kaliya lama rabo dhuhur waa inaad tiraado hadduu cisho yahay cisho waa inaad tiraado فإذا حضرت هذه ثلاثة صدحدا مركي كسو حاضران في قلبه قلبيسا قال وحورنيا الله أكبر كان نيد سو حاضر سو قلبك صح كسو حاضر صلاة إنا فرلتها إنا أيدي عينتوه بلتري وإنا تكتنا نيوتي مركت قلبك صح قبته الله أكبر بالله وحرنا يسا مركز غير غافل حال يسقه المنصرين عنها نيدي ويزيد وحزياديا قدرا استحضارا مأموما وقدريا إن كان جماعة صلاة هذه جماعة مأموما أما مقتديا أما جماعة وإنه يرادوا وإنه قلبك وقبته هدو كلي تكني أنت عملنا ما أرني هدو إمامي هاي إماما بوديهم وأنا صنع إنه إمام يراد
الثاني كاللباد ركن اللباد صلاة أركان تكمل تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر الثالث ركن صدحات قراءة الفاتحة فاتحة الأخرى في القيام استاغ وين لو أخرى قفكي أودي قفكي معذور كاده سيدا أودي سأم بكتكنيا دو استاغي واي فدو كتكن فدق هدو قبن واي جيف كتكنيا الرابع كنفرا القيام استاغويه إن قدر هدو كرو قفكو هدو أوده وإنه صلاة استاغ كتكن ولو بحبل حرق بها كعاي حرق بكو استاغ بركو كعاي حرق بكو استاغ قبسنيا بركو فريسنيا حرق غاس بها كال وحون هكال ميسته أو أمس معين قف كالميني قف قرب تاغنو وكعينيا استاغ وسكا تاغنان كرا بركي ليساجيو لكن عدان كادباي أما وحبو قبسنيا كو استاغيا أما قف با كالمينيا وقبنيا في صلاة الفرض صلاة فرض marka صلاة فرض قف وين استاغ كتكدو ولو كالمداس لو كالمينيا با كو أما حرقاس با كو استاغ الخامس كشنات الركوع وي ركوع وي سيو الركوع يا بأن ينحني وإنه هابطه من غير إرخاء ركبتيه أسوأ لغها سوقدين وإنه هابطه ركوع عمرك قفك ركوعي وحال ربا أسوأ سيدا أتوصر لغيه سأنصور لابن لغها بركات فورسة لغيه نساسي أصول لامن يعني لمرة لغيه سيدي أتوصر يقفك الربا إنه فورسة إلى حتى تنال راحته لبدي سعلا على إلى أي جاران ركبته لبد اللو سو سيدي أتوصل مرة عندك عمها إنه لو يهسا أو جرسي على وسا أو قبط السادس كاللحاد الطمأنينة تحصل وهي فيه في الركوع ركوع وينك حصل بأن تنفصل وينك سو عنته حركة هويه مركو صو هو بني هو بشدا أو صو هو بني حركة دي دقائق دي عن حركة رفعه كرنقشة حركة دي وينك لا سو عنته ومركات صو هو بني سو دقائق هذا مركز سوق عيسنا كرات سوق عيسنا ودقدقة عيسى وإن حصل أدحية كاسة طمأنينة ليلة مركز جلبها قبضته وين دقدقة قدم ديسه مركز وين حركته كلا سوعنته وتسكن أعضاء حبنه سواء يحصلان كلها ضمانته السابع كان تضبط اعتدال بأن ينتصب وإنه مقائما حاليا وإنه استاغه كهذا قف سيدي سعادة انت وكري وإنه استاغ الثامن كان سيدي الضمانينة تحصل وي فيه في الاعتدال كوينه كحصله كما ذكرنا في الركوع التاسع ركن السقالات السجود الأول سجود هروي بأن يضع وإنه دجيو جبهته وجهيسه مكشوفة حالة تأييده فيدا وجهه مركز دولك دغيسو وإنه وجهه فيدية حبا وإنه صارنين وكدنين على مسلاه ماشي كنت كني وإنه وجهه فيدا متحاملا عليها قليلا وحيرنا وإنه حوغا هوري ugu xumbaaro متحاملا عليها معناها waxa marka sujuud wajiga dhigto waxyar baa miisaanka iyo culayska inaad hore waxyar u saarto غير متحرك حاليا asagoon dhaqdhaqaaqayn markaad wajiga dhigto saas u wadwadi maysid qaar baa sida markay sujuudaan oo oranaya may markaad wajiga dhigto xoogaa miisaanka waxyar saar dhaqdhaqaaqana daa ku xasil raafican xaalu yahay mid kor yeelayo cajiizatahu baryihiisa iyo simaha waa qaarka dambe iyo wamaa xawlaha iyo wuxuu ka kor yeelayaa calaa mankibeehi garbihiisa iyo wayadayhi gacmaha iyo wara'sahu madaxiisa dhinacaagi kore inuu hoos maraa la rabaa dhinacii hoosena qaarka dambena inuu kor maraa la rabaa saasaa la rabaa inay u sujuudo maxaa la diidayaa in meel yar dalcada aad ku sujuudo dalcad oo adigiiba sidaadi oo qaarkaagi kore u korreeyey madaxaagi iyo garbahaagi say u korreeyeen haddaad meel dalcad oo taaga saa ugu sujuudo oo qaarkaagi horena sidii hoos u jiro ma ansaxaysa sujuuddaas qaarka kore inuu hoos maraa rabaa qaarka dambena uu kor aado kaasaa sujuud noqon karta sujuudkaasaa noqon karta wa bi-an yadaca waa inuu dejiyo juz-an juz min kullin mid la arko min rukbatayhi labada low wa min baadini kulli kafin labada gacmood kafka baadinkooda mid kasto wa min baadini asaabici kulli rijlin lug la arka faraheeda faraha baadinkeeda waa inuu dhigo oo 7 xibnood wax laga sujuuday soo ma siduu nabigu u yiri calayhi salaatu wasalaam umirtu waxaa lay amray an asjuda calaa 7 acdaa 7 xibnood inaan ka sujuudo
wejiga, labada gacmood, labada low, labada lugood, farahooda, faraha baadinkooda weliba dhinaca cad baa rabaa in la dhigo, ama faraha fiidooda saas loo dhigaya, waa la istaajinaya, ama dhinaca baadinkaa saas loo dhigaya. dhinacan haddaad u laabto sujuudu ma ansaxayso. lugta hadday saa kugu laaban tahay ama kor aad u hayso ama saa ay u laaban tahay sujuudu ma ansaxayso. 7 xibnood inaad ka sujuuddo wey. alcaashiru rugniga tobnaad salaada arkaanteeda ka mid ah addumaaniinatu xasil weeye fiihi fi sujuudi, sujuudda waa inaad ku xasisho kamaa dakarnaa fi rukuuc, saan rukuuca kusoo sheegnay. 11 rugniga 11aad aljuluusu fadhi weeye bayna sajdatayn, labada sujuudood dhexdooda waa inaad fariisato. sujuudda hore markaa kasoo kacdo waa inaad fariisato, fadhi baa udhexeeya laba sujuud dhexdooda. bian yantasiba waa inuu taagmo jaalisan xaal iyo qofku waa inuu fariisto jaalisan xaal uu yahay mid fadhiyo caadi waa inuu ufariistaa la rabaa. 12 rugniga 12aad addumaaniinatu xasil weeye fiihi fi ljuluusi fadhiga bayna sajdatayni, labada sujuud udhexeeya. fadhiga labada sujuud udhexeeya waa inuu ku xasilo kamaa dakarnaa fi rukuuc, saan rukuuca kusoo sheegnay. 13 rugniga 13aad asujuudu thaani, sujuudi labaad wey mithla sujuudi lawali xaalata, sujuudi hore umay la mid tahay markii la tilmaamo fii ma mara fiihi, waxaan kusoo marnay wey. 14 rugniga 14aad addumaaniinatu xasil weeye fiihi fi sujuudi thaani, sujuudda labaadna waa in lagu xasilo kamaa dakarnaa fi rukuuc, saan rukuuca kusoo sheegnay. 15 rugniga 15aad aljuluusu fadhi weeye, aljuluusu lakhiiru dhe, aljuluusu lakhiiru fadhigii u dambeeye way muntasiban xaal iyo qofku midkii caadi u fariisanayo, inaan caadi usoo fariiso fadhiga ugu dambeyso atixyaadsanaysa. 16 rugniga 16aad qiraa'atu tashahudi, atixiyaadka oo la akriyo way fiihi fi ljuluusi lakhiir, fiihi fi ljuluusi lakhiir fadhiga u dambeeyo waa in atixiyaadka lagu aqriyo. 17 rugniga 17aad asalaatu cala nabiyi wey sala allahu calayhi wasalam, nabigoo lagu saliyo wey. oo atixiyaadka markaad dhamayso ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah iyo atixiyaadka ugu dambeyso maha, saliga waa inaad la imaato asalaatu cala nabiyi wey sala allahu alay wasalam. bacda tashahudi atixiyaadka bacdigiisa fi lqucuudi fadhigaad kula imaanaysaa, oo saliga fadhiga adoo fadhiyaa la rabaa inaad saliga la timaado. wa aqaluhaa saligaas ama salaadaa inta ugu yarna allahuma salli calaa muxamadin wey. 18 ruknigii 18aad assalaamu salaam weeye bacdaha bacda saliga bacdaha bacda salaati cala nabiy, saliga bacdigiis waa salaamtide fi lqucuudi adoo fadhiyo ayaa salaamo naqsanaysaa. wa aqaluhu salaamta inta u yar assalaamu calaykum, taas ugu yar. assalaamu calaykum keliya haddaad tidhahdo salaadda waa ka baxaysaa adoo dhinacna fiirinin mid labaadna oranin, taasa uga baxaysaa salaada. in markaad tirahdo midigta la fiiriyo, tan kalena tu kalan lagu daro bidixda la fiiriyo, oo raxmatullaahina lagu sii daro waa sunno. laakiin salaamta inta ugu yara salaada looga bixi karo miimkaas haddaad gaarto kum waa miimu jamc, miimkaaba haddaad gaarto assalaamu calaykum salaada ka baxda. 19 rukniga 19aad waa rukniga ugu dambeeya salaada arkaanteeda ka mid a atartiibu tartiib wey. saa waa inaad arkaanta u tartiibiso, waa inaad saa u kala hormariso, mid la arka maxalkeeda waa inaada daba marinin wey. bian yaatiya waa inuu la yimaado biniyati niyadi maca takbiirati lixraam, tartiibtiibuu kuu suureynayaa, niyadii buu niyoonayaa, takbiir ixraamka u la imaanaya allahu akbar, uma alfaatixati faatixadii buu akrinaya fi lqiyaam isagoo taagan, uma rukuuc wuu rukuucaya maca dumaaninati xasilkiisi la qabo, uma alictidaal wuu soo toosaya maca dumaaninati asagoo ku xasilayo, uma sujuud lawalu sujuudi koobaad buu la imaanaya maca dumaaninati asagoo ku xasilayo, uma aljuluusu fadhigii, uma aljuluusi baa ku xiga bacdahu yani bacda sujuudi lawali, sujuudi hore fadhi baa ka dambeeyda waa fadhigi laba sujuud udhexeeya maca dumaaninati, uma sujuudi thaani sujuudi labaad maca dumaaninati xasilkiisi la qabo. fa hada tartiibu awali ragcatin, ragcaddii koobaad tartiibkeedii waaye. uma yaati wuu la imaadaa baaqi rakacaati bibaaqi rakacaati, ragcadaha intoodii harayna milahaa saasoo kale unbuu la imaanaya. ilaa anahu asagu laa yatii fiiha ragcadaha labaad kulama imaanayo ma samaynayo biniyati wa takbiirati lixraam, ragcadaha dambe niye iyo takbiir ixraam ma laha, laakiin inta kale waa isaga mid, faatixadii, istaagii, rukuucii,
ictidaalkii sujuudii inta kale waa isaga mid laakiin niyadii iyo xirashadii salaada lama soo celinayo labada ala soo celin maayo ragcadda koowaad baa lagu la yimaada fa idaa tamat rakcaatu fardihi salaadiisa faradkiisa ragcadaheedii markuu dhameeyo salaadu ama waa 4 ama waa 3 ragcadood ama waa 2 ragcadood ragcadihii salaada markaad dhamaystirto fa idaa tamat hadday taab noqoto rakcaatu fardihi faradkiisa ragcadaheedii hadday taab noqdaan jalasa wuu fariisanayaa aljuluus alakhiir fadhigii ugu dambeeyey atixiyaadkii ugu dambeeyey kula imaanayo uma qara'a wuxuu aqrinayaa atashahuda atixiyaadkii fiihi fi ljuluusi fadhigaa ugu dambeeya ku aqrinaya uma sallaa cala nabiyi sala allahu alay sl nabigu ku salliyaa qaala wuxuu yidhahdaa allahuma salli calaa muxamadin uma qaala wuxuu odhanayaa assalaamu calaykum saasuu yidhahda wa arkaanu salaad salaada arkaanteeda waa 19kaasi saasuuna kuugu tilmaamay wa arkaanu salaati salaada arkaanteeda 3 aqsaam 3 qaybood wey arkaanta salaada 3 qaybood wey al-awwal midka koobaad qalbiyun waa mid qalbiga lagala yimaado rukni oo qalbi ah la yiraahdaa wa huwa niyatu wa faqat arkaanta waxa qalbiga laga sameeyo salaada arkaanteeda niyada kaliya wey oo niyada maxallaha al-qalb baa leeyahay maxalkeedu waxa niyada waa qalbiga qalbiga baa laga niyoodaa marka niyada kaligeed ruknigaas waxa la yiraahdaa qalbi wa sharduha niyada shardigeeduna an takuuna inay tahay weeye maca takbiirat al-ihraam takbiir ihraamka waa inay la jirto oo niyada markaad niyooto hadaada Allahu akbar dhihin niyadii waxba kuma xasilayso maxay yeelay waad niyootay salaad ina tukanaysa niyootay Allahu akbar maada dhihin tana waa iska aamustay niyadu way iska tagaysaa mayda joogayso marka waxa shardi u ah markaad niyooto salaad farad ah oo hebla oo salaad in aad cayintay oo duhur casr aad tiri markaad niyooto qalbiga ku qabato Allahu akbar anatala markaasay ku xirmaysa ku joogaysa wa an takuna fi al-qiyam istaagana waa ina ku dhacdo salaadu hadday faral tahay niyadu waa adoo taagan inaa niyooto la diin yaa la rabaa adoo taagan waa inaa niyooto marka takbiir ihraamkii iyo niyadu waa inay istaaga ku dhacaan مثلا salaadii lagu jiraa timid ayadoo la rukuucsan yahay dib ka soo gaartay markii adoo sii rukuuc sii foorarsanaya niyoote taaniyo ma noqonayso adoo taagan baa raayna niyooto oo markaas Allahu akbar tiraado markaasna aad rukuucda la doonay markaas rukuucdo athani qaybta labaad ka waa rugniga koobaad waa niyadiyo qalbi baa leeyahay athani qaybka labaad ee arkaanta salaada qaybaheedii kamid saddexdaha al-qawliya qawli baa leeyahay oo arkaan qawliya qawlina wixii la aqriyaa leeyahay lagu hadlo way وهي 5 شن أركانت قولك وشن تكبيرة الإحرام الله أكبر وقول دي أول صلاة حالة صلاة أول كذا دعلا وقراءة الفاتحة في كل ركعة فاتحة وقول دي ركعات كستان لغو أغرنيا وقراءة التشهد التحيات وقول دي التحيات قدام به صلاة مركز لك بحيوه كاسبا واجبه ككلا وسنة أركان تالتين متك فرض كالتين التحيات قدام به وقراءة التشهد وصدح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال له صلي والسلام نبي قال له صلي ولا السلام آخر الصلاة صلاة آخر كذا ثلاثتها صدحا في القعدة الأخيرة فدق قدام بيد عن التحياتك صلي النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي ولا السلام يا سلامته فصدح صدح راس وحيد عن فدق يعني فدق قدام بيد عن وشرط هذه الخمسة شرط هذه والسلام والسلام سلامتي صلاة اللغة بحيوة والسلام آخر صلاة آخر كذا أركانتي قول جهي وشن تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة في كل ركعة قراءة التشهد التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفرسومها هي والسلام سلامتي سلامتي صلاة اللغة بحي وآخر صلاة آخر كذا والسلامتي وي صلاة اللغة بحي آخر صلاة مركب واشن صدح ذا أودا بي ثلاثة يعني ثلاثتها صدح ذا وصدح الوامع التحياتك يصلي النبي يسلامته في القعدة الأخيرة فدق أودا بي دعا فدق أودا بي على ماذا فدق أودا بي مركب فريسته وهذا تحيات تحياتك مركب رميسه صلي الله إيماني
salaad baa ka baxaysa de waa salaam naqsanaysa wa shardu haadihi lkhamsati arkaantan qowliga oo shanta ah shardigeedu an yusmica nafsahu qofku waa inuu ismaqashiiyo markaad akrinayso adigu waa inaad ismaqlayso faatixada markaad akrinayso waa inaad naftaada waa inaad maqashiisa wey idaa lam yakun asama qof dhagala hadduun ahayn qofka hadduu dhagala yahay waxba isma maqashiinayo hadduu asam yahay marka waa inuu asaga ismaqashiiya hadduuna qof dhagala ahayn walaa maanicu riixin dabaylna waa inaysan jirin maanicu riixin waa inuusan jirin riix wey dabayl iyo walaqadin hugun wax hugun ahoo yeerayo xiin iyo guux iyo wax yeerayo daryaana oo markaad wax akrinaysa adigo waxba aadan la maqlayna waa ina meesha naxwihimaa wa ilaa haddii uu qofku dhagala yahay ama waxbaa qayliyay hugun baa yeerayo waxbaa yeerayo rafaca kor buu wax yar codka kor buu u qaadaya bixaysu meel low zaala samamu dhagala-aantu hadday ka zuuli lahayd wal maanicu waxaas qayliya iyo daryaankaas yeeraya hadduu ka bixi lahaa meesha la samica u maqli laha qadarkaas umaad kor u qaada waalaa yanqusa waa inuusan nusqaaminin shay-an shay oo min tashdiidaatiha salaada shidadkeedii ka mid ah macnaha min tashdiidaatiha wa xuruufiha waalaa yanqusa shay-an oo min tashdiidaatiha ashyaada lasoo sheegay waa faatixadii waa atixiyaadkii waa salligii waa salaamtii yani shidkoodii yani arkaantii qowliga ahayd shidkeeda waa inu waxba ka tegin xuruufiha xuruufteeda waa inu waxba ka tegin wa an yukrijaha min makhaarijiha xaraf la arkay makrajkiisa waa inuu ka bixiyo wa an laa yuqayira waa inuusan doorin shay-an shay oo min xarakaatiha xarakooyinka kamid shaqalkiina waa inuu bedel taqyiiran doorsoon yubdilu uu ku burayo macnaha macnaheeda wa an laa yaziida waa inuuna ziyaadinin fiiha fiigeeda xarfan xaraf waa inuuna ku ziyaadinin xarafka yabdulu bihi macnaha macnaheeda uu ku burayo wa an yuwaaliya waa inuu xiriiriyo bayna kalimaatiha markuu akrinayo kalimaadkeeda waa inuusan kala gogoyn wa an yuratibaha waa inuu ratibo calaa nadmiha almacruuf sidii loo yaqaanina waa inuu akriyo waa inuu kala hormarmarin arkaantii qowliga waa qeybkii labaad ee salaada arkaanteeda ka mid a qalbi iyo qowli baan kasoo baxnay qalbigii waa niyadii qowligiina waa shanta rugni takbiiratu ixraamkii faatixadii yani atixiyaadkii salligii iyo salaamtii wey athaalisu qeybka saddexaad oo salaada arkaanteedii ka mid ah alficliya qeybka saddexaad ficli baa lay arkaanta ficliga ahayd waay wahiya 13 13 way arkaanta ficliga 13 waa ficli 5 waa qowli 18 soo ma halna waa qalbi oo waa niyadi 19 kaas salaada arkaanteeda waa 19 buu soo ma marka 13 way arkaanta ficliga alqiyaamu والركوع والطمأنينة والاعتدال اعتدالك والطمأنينة حسنكيس وسجود الأول سجود كوا والطمأنينة والجلوس فرق بعده بعد السجود الأول فرق لما سجود حي والطمأنينة وسجود الثاني والطمأنينة وواحد واحدنا بعد آخر ركعة قدام بيو كجرا وهو الجلوس الأخير فرق قدام بيو وواحد مدنا ينشأ وحكا دلنيا من فعل هذه الأركان أركان سمينتها في موضعها مثل أرقميشيس اللي سميه وهو ترتيبه وين وشرط الأركان أركان شروط هذه أركان الفعلية فعلية صحة ما قبلها وحكوه الرئي مدوى البابا وحكوه الرئي إنه أنصحوه صحة ما قبلها وحكوه الرئي إنه أنصحوه ومن الأركان كمل وألا يقصد بها غيرها وحكى له إنه أولا قصدوه وأما مبدلات الصلاة صلاة وحي برني فإثنى 12 لبية طبوي الأول متك كوبا فقد شرد أو لواية وهي من شروطها صلاة شروط إذا كملها 12 لبية طبنكا شروط اللبية طبنكا صومر هذه متك من لواية صلاة وحي برنسا عمدا كسب لواية كو عمدا ولو بإكراه أو سهوا أو جهلا mid kastaba ha ku imaatee ama qofka ha hilmaamo ma jahli baa u geeyey ama waa lagu ikraahay ama kasbu u sameeyey marba haddii shardi la waayo dee salaada shardigeeda haddii mid kamida la waayo salaadu ma ansaxayso athani kan labaad salaada mubdilaadkeeda kamid waxay burinayay faqdu rugni la waayo min arkaaniha salaada arkaanteeda kamid ah 19 ee 19 ka
arkaanta haddaan soo marin 19 mid ka mid haddii la waayana salaadu ma ansaxayso. fa in kaana sahwan hadduu hilmaan ooga tago ataa bihi wuu la imaanaya idaa dakarahu hadduu soo xusuusto. arkaanta salaada haddaad hilmaan ooga tagto markuu soo xusuusto qofku waa la imaanaya dib ugu noqonaya. walaa yuxsabu la xisaabi maayo maa facalahu wuxuu sameeyey bacda almatruuki midkii rugni buu ka tegey wixii ka dambeeyey lama xisaabayo xataa yaatiya bihi ilaa uu rugnigu ka tegay la yimaado. famaa bacda almatruuki laqwun saasuu dhihi jiray minhaaj. famaa bacda almatruuki rugnigii laga tegay wixii ka dambeeyey oo dhan laqwun laqwi weeye waxba kama jiraan waa la iskaga tegaya waa la tuuraya. athaalidu kan saddexaad mubdilaadka salaada burinaya ka mid ah ziyaadatu ruknin rukni la ziyaadiyo oo min arkaaniha salaada arkaanteeda ka mid ah alficliyati wey ow ityaanu niyati niyadii uu lala yimaado weye ow takbiirat lixraam takbiir ixraam oo lala yimaado weye aw isalaam salaamta oo lala yimaado weye fii gayri maxalihi meeshiisi meel aan ahayn camdan kasna loola yimaado. salaada dhexdeeda isagoo ku jiro yuu niyadii la yimid hadda inuu salaadii galayu niyo salaadii hore uu ku jiro waa ka buraysaa. ama takbiir ixraam buu la yimid salaada dhexdeeda isagoo ku jiro yuu hadda xirtayba allahu akbar buu yiri way ka buraysaa salaada. aw isalaam salaam buu la yimid oo salaadii oon dhammaanin yuu salaama naqsaday assalaamu calaykum kasbuna camdan kasbu u yiri waa ka buraysaa salaada. fa in kaana sahwan hilmaan hadday tahay takbiirtan uu la imaanayo assalaamu calaykumta uu leeyahay hadday hilmaan tahay ow zaada wuu ziyaadiyey gayra maa dukira oo min alarkaan arkaanti wax arkaanti ma ahee yani gayra maa dukira de oo min alarkaani niyadii iyo takbiiratu ixraamki iyo salaamtii ma arkaanti kale mid kamid uu ziyaadiyey faatixadii buu mar kale ku celiyey wuu ziyaadiyey ziyaadu la imaado ko camdan kas buu u ziyaadiyey ow sahwan buu u ziyaadiyey lam tabdul haddaad faatixada laba goor akriso ama atixiyaadkii buu ku celiyey musalligii buu ku celiyey kama buray salaada ziyaado un ziyaada waa kama dhibeyso daa ziyaadisa waay ama meeshii meel aan ahayn buu ku aqriyay rukuuca tasbiixayi laga rabay faatixu rukuuci ku aqriyay salaada kuma burayso. alraabicu kan afraad ee mubdilaadka salaada ka mid ah an yataxaraka waa inuu dhaqdhaqaaqa xarakatan xaraka waaxidatan oo keliya mufrida oo xadguduba. salaada xarakaadka way buriyaan mogtaha laakiin hal xaraka oo mufrid uhu sameey wuu bood hal mar uhuba xoog u booday waa ka buraysaa salaada. ow halaatha xarakaatin mutawaaliya saddex dhaqaaq oo isku xiguu sameeyey dhaqdhaqaaq isku xigo camdan kasbu u sameeyey camdan kaana haya dhe ow sahwan haya ama kas ahaado ama kama ha ahaado ow jahlan ama jahli ha ka ahaado saddex dhaqaaqba haddaad dhaqaaqdo salaad way kaa buraysaa. alkhaamisu kan shanaad ee mubdilaadka salaada burinaya ka mid a an yakula inuu wax iska cuno way aw yashraba inuu cabo way salaada isagoo ku jira haduu wax cuno ama uu wax cabo qaliilan kaana haya waxaas uu cabay wax yar haya aw kaiiran camdan kaana haya aw sahwan aya way ka buraysa salaada. fa in kaana sahwan aw jahlan wacudiriya lam tabdul bilqaliili wabadala bilkaiir. haddii uu wax cuno ama uu wax cabo qaliilan camdan wax yar buu cunay wax yar buu cabay kas buu u sameeyey salaada way ka buri. fa in kaana sahwan hadduu hilmaan yahay ow jahlan ama jahli weeye waxba salaad waxa kama yaqaano weligii wax u sheegay ma laho wuxuu moodi salaada dhexdeeda wax la iskaga cuno wax la iskaga cabo wacudira waana jaahil loo cudur daaro sida qof hadda soo islaamay weeye. lam tabdul bilqaliil wax yar kuma burayso wax yar hadduu cuna ma cabo wabadala bilkasiir laakiin wax badan hadduu cuno way ku buri salaadi. asaadisu midkii lixaad oo salaada mubdilaadkeeda ka mid ah ficlu shayin shay oo la sameeyo weeye shay samayntiisa weeye min mufdiraati saa'imi qofka sooma wixii afurinayay oo gayr alakli washurbi. qofkii soomanaa waxyaalihii aan cabid iyo cunid aan ahayn oo kale uu ku afurayay qofkii hadduu sameeyo salaada dhexdeeda ku sameeyo way ka buraysaa salaada way ka buraysaa. asaabicu kan toddobaad qadcu niya niyadoo la gooyo wey ka an yawiya waa inuu niyoodo alkhuruuja min asalaad hadduu asagoo salaada ku jiro yuu niyada wuxuu ku qabta inuu salaada ka baxo way ka buraysaa salaada inaad ka baxdaba haddaad niyooto salaada waa buraysaa. athaaminu ka sideedaad tacliiqu lkhuruuji minhaa salaada ka bixiteedo lagu salaada ka bixitaankeedoo lagu xidho wey inuu salaada ka baxo wuxuu ku xidhay
shay buu ku xidhay kaan yawiya waa inuu niyoodo idaa jaaa zaydun kharajtu minha qof baan sugayaa waan sii tukanaya anoo salaada ku jira hadduu iigu yimaado waan ka baxayaa baa tiri ninkaas imaatinkiisa salaada ma sugayso haddayba kaa baraysaa wey haddaad mar meel ku xirto bixitaankeedaba haddaad meel ku xirto ku tacallujiso tacliiq baad samaysa way buraysaa ataasicu kan sagaalaad altaradudu fii qadciha salaada ma goysaa iska dhamaysataa ma goysaa wuu ku taraduda qofka kaan taxduha lahu xaaja kusoo darisa fi salaada dhexdeeda arrin ku timid waxbaa soo yeeraya cabsi iyo waxbaa la maqlay qayle iyo waxbaa soo darinay ama caloosha laga qabtay oo uu joogi la-aya ma iska dhamaysataa mise waad orada ma dhamaysataa buu leeyahy hadduu mar ku taradudayo salaad kuma jirtid or iskaga bax meesha orad marba haddaad ku taradudo waxaa wey salaad way buraysaaba de fataradada bayna qadci salaati walkhuruuji minha wa bayna yani takmiiliha salaadii ma goysaa oo ma ka baxdaa mise waad dhamaysataa waa ku taradudayaa way buraysaa salaad markaasayba buraysa alcaashiru kan tobnaad ashaku shaki weye fii waajibin min waajibaati niya niyadii waajibaadkeedii mid ka miduhu shaki macnaha inuu niyooday oo si fiican u niyoodaa shaki ka galay salaada dhexdeeda ku jiro idaa daala zamanu shaki curfan haddii shakigaas uu cabaar kugu jiro niyadi ma xiratay maxaad niyootay ma niyootay horta niyadii isagoo leh marka haddana shakigii baa ku dheeraaday xoogaa ow facala macahu ruknan ficliyan rukni ficli ah ilaa intuu taagnaa qiyaamka faatixada laga dhameeya faatixada qiyaam baa lagu dhameeya ilaa qiyaamkaas uu ka dhameeya faatixadii uu ka rukuuco intaasu shakiga waa ku jiray salaada ka buraysa ow qawliyan ama rukni qawlia intuu ka dhameeyo ayay niyadii shakiga ku jiray shakiga hadduu kugu dheeraado wuu burinayaa salaada alxaadi cashara kan 11 salaada mubdilaadka burinaya ka mid a qadcu rukni oo la gooyo oo min arkaaniha alficliya salaada arkaanteedii ficligeed ka mid a arkaanta ficliga hadda soo marin 13 bay ahayd sooma arkaanta ficliga 13 bay ahayd qiyaamka u horeeyay qiyaamka istaaga rukuuca ku xigo ictidaalka ku xigo sujuud yani ku xigo arkaanta salaada rukni ka mid ah mid ka mid a ood goyso wey taad gashay waad haddana ka noqotay aad goysay maxaad u goysay liajli sunnatin sunno darteed baa oga tagtay waajib baad ka tagtay liajli sunno darteed baa oga tagtay kaman qaama qof istaaga wey kaman qof weeye qaama istaagay naasiyan isagoo hilmaansan naasiyan xaaliya mid hilmaamay litashahudi lawali atixiyaadka hore u hilmaamay 2 ragcadood markuu tukaday inuu atixiyaadsaday ahayd soo maha atixiyaadkiibuu hilmaamay markaasuu istaagay markuu istaagay ayuu xusuustay inuu atixiyaadka ka tegay uma caada lahu markaasuu noqday haddana atixiyaadkiiba u laabtay wuu fariistay caaliman asagoo og caamidan kas u yeelayo badalat salaatuhu salaadiisa way buraysaa yani atixiyaadku waa sunno qiyaamkuna waa farad marka waajib baad goysay sunno darteed baad u goysay mar haddaad istaagto inaad noqoto waa xaaraam ma noqon kartid waad sunnada waad mar ka tagtay usoo noqon maysa waajibka waad sii wadaysaa salaada ilaa inaad ma'muum tahay mooyaane ma'muum haddaad tahay oo hilmaan baa kugu dhacay oo markuu imaamkii atixiyaadkii hore u fariistay baad adigu iska kacday adoo taagan umaad aragtay qalbigaagi baa meel jiray qalbigu iska tegi mogta markaas adoo taagan umaad aragtay imaamkiina atixiyaadka u fadhiya marka inaad soo noqoto waajib wey markaas sunno darteed uma noqonayside imaamka raacitaankiisaa waajiba marka waajib waa loo goyn karaa mutaabacatul-imaam baad u noqonaysaa markaas laakiin haddaada imaam ku xirin ama adaa imaam ah ama keligaabaad tukanaysaa imaamku asagu qofu raacaya ma jiro imaamku mar hadduu kaco ma noqon karo kuwa qaarkood markuu imaamku atixiyaadka hore istaago subxaan allah bay leeyihin subxaan allah macnaheedu waa maxay imaam atixiyaadka horaad ka tagtay waay soo ma lama soo noqon karo de haka yeelin haddii sidaa lagu yihahdo maba noqon kartid ba de waa inuu kugu raaco asaga naftiisa ma'muumku hadduu imaamku atixiyaadka ka tago waa inuu ku raaco hadduu la yimaadona waa inuuna asagoo ka tegin waa sunno wa allaa yukhaalifa yani sunnatan waa inuuna ku khilaafin sunno
يعني khilaafideedii mukhaalafadeeduna ay fool xun tahay way faaxishat almukhaalafa waan soo barnay sunno oo mukhaalafadeedu ay fool xun tahay waana idan imaamka aada ku khilaafin baa la doonaya marka haddii uu atixiyaadkii intuu ka taga uu u noqdo isagoo kas u yeelaya qofkii munfaridka keligii ahaa ama imaamkii salaaddii way ka buraysaaba athani cashara kan 12 albaqaau fii ruknin rukni oo lagu baaqi ahaado waayo idaa tayaqana hadduu yaqiiniyo tarka maa qablahu ow shaka fiihi uu shakiyo idaa daala curfan bal yalzamu waxaa ku waajibaya alcawdu inuu noqdo fawran deg deg uu noqdo ilaa ficli maa tayaqana tarku ow shaka fiihi ilaa in kaana ma'muum inuu yahay moog masalan sujuudi dambuu ka tegay markuu qofku sujuudi koobaad u sujuuday ee uu soo fariistay fadhigii la rabay inuu fariisto udhexeeyey labada udhexeeyey uu fariistay sujuudi labaad inuu ku noqdo soo lama rabin uu iska kacay sujuudi labaad buu hilmaamay markuu istaagay iyo wuxuu xusuustay inuu sujuudi labaad kasoo tegay waa inaad noqoto markiiba waajib waa inaad noqoto oo soo sujuudo way haddaad iska sii wadato adoo og inaad sujuudi kasoo tagtay ama adoo waad shakisay sujuudi labaad ma ka tagtay mise kama tagin shakigii baa kugu sii dheeraaday haddaadan noqonin salaadu way kaa buraysaa waa inaad markii bal yalzamu waxaa ku waajibayo alcawdu inuu laabto rugnigu ka tego u laabto fawran deg deg ilaa ficli maa tayaqana tarkuhu wixii inuu ka tegay uu yaqiinsaday waa inuu u laabto oo shaka fiihi uu shakiyey ilaa in kaana ma'muuman inuu yahay moog oo sujuudi labaad baad ka tagtay masalan ma'muum baadna tahay imaamkii kama goosan kartaad iskama noqon kartide see la yeeli haddaad ma'muum tahay imaamkaagaad iska raacaysaa markaad salaada dhamaysato fa ya'tii birakcatin bacda salaami imaami imaamku hadda waa mutaabacadii imaamka kama hari kartid ruknigaa waajibka inaad u noqotona waa ka waajib imaamka raacidiisuna waa waajib marka imaamka ma khilaafayside markuu dhamaysto imaamku salaamo naqsado yaa hal ragcad la imaan walaa yajuuzu lahu lcawdu noqosho oo ma banaano fa haadihi midan alaxkaamu ee axkaamta yalzamu way waajibaysaa kula muslimin yalzamu waxaa waajibayo kula muslimin qof kastoo muslima macrifatuhaa inuu barto arkaantan inuu barto qof kastoo muslima waajib wata salaada shuruudeeda arkaanteeda iyo mubdilaadkeeda waxa burinaya shuruudu salaad waan soo maray 12 wey arkaantii salaadana 19 wey mubdilaatu salaad salaada waxa burinayana 12 way qof kastoo muslima inuu bartaa waajibka haddaada intaa aqoonin salaadaada saad u ansixaysa ma garanaysa walil wuduu'i weysadii iyo walqusli qabayskii iyo wasalaata salaadii sunanun sunnooyin bay leedahay intii waajibkii baan kasoo hadalnay iyo wixii laabidku aan laga maarmaynin sunnooyin weysadu sunnay leedahay qabaysku sunnooyin buu leeyahay salaadu sunnay leedahay kasiiratun fara badan jiddan aadna u badan faman araada qofkii doonaya xayaata qalbigiisa inuu noolaado oo qalbigiisu nuuro walfawza cinda rabbihi rabbigii agtiisana uu ku liibaano falyatacalamha sunnada ha barto wayacmal biha ha sameeyo falaa yatrukuhaa sunnada kama tago ilaa mutasaahilun qof diinta fududaysanaya mooyaane ow laahin mid isaga jeesay ajirka iyo sawaabkaba aan rabin ow saahin iska hilmaansan ow jaahilun jaahila moogin qof sunnada iska fududaysanaya wax waa sunna iska dhaafdhahay haddaad aragto waa mutasaahil waa qof yani sawaabka iyo ajirkaba aan rabin waa jaahil weye qofkaas wey maxaa yeelay sunnada qofkii fududaysto ninkii sunnada fududaysto sawaabkaa laga hoojinaya ajirkaa laga hoojinaya markii uu sawaabkii sunnadii iyo ajirkeedii uu waayo wuxuu gelaya marka dambe inuu waajibkii naftiisii fududaystaa imaanayso waajibkii inuu fududaysanaya wa mima yataakadu macrifatuhu waxa inuu barta ay waajibka tahay aad yani la suneeyay wa mima yataakadu macrifatuhu waxa ay aad u adag tahay ay wanaagsantahay sunnada muakad ay tahay waxaa ka mid ah macrifatu in la barto adkaaru salaad salaada adkaarteedii wa naxnu anagu nadkuruha waan sheegaynaa hunaa halkan biikhtisaarin waan soo gaabinaynaa fayaquulu wuxuu dhihi qofku fayaquulu lmusalli qofkii tukanaya wuxuu odhanayaa usallii farda duhri ayaan tukanayaa 4 rakcaatin 4 ragcadood adaan o adaa qado maha waa ado mustaqbil alqibla xaalan qiblada mid qaabilaya ma'muuman lilahi tacala allahu akbar wayubdilu duhra duhurkii wuxuu ku bedelayaa
في غيرها هدو صلاة كلا تكون مقع مبدلية باسمها مقعدي ويذكر وشيغيا عدد ركعاتها ركعتين وشيغيا 4 ركعات 3 ركعات ركعتين ويقول حورنا إماما بأورنا بدل مأموما إن كان إماما هدو ده تجينيه ماشي مأموما دي لا هدو مأموم يهي إماما بودي هدو إمام يهي إن كان إماما ويتركهما لبدو إماما إيا مأموما من مدهايو إن كان منفردا هدو كريجي تكني ثم يقول وحوري مركو صلاة حرته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين والدعاء الافتتاح بالله وجهت وانجهي وجهي ذات ذيدي للذي معبود بان أجهي فطر السماوات كأبوري والأرض أرض أبوري حنيفا حالنا مد إيلاني دينها باطل كا أنك إيلاني دين تحقق إسلام كانوا إيلاني مسلما حالنا مد هو جانسم إلهي وهو جانسم وما أنا قميه من المشركين قال لك من ميه إن صلاتي صلاة ديدا والنسكي عمل كيدا ومحياي النولة شيدا ومماتي غيري ديدا لله إلهي بأسقنات انت أصدنا بإلهي بهاي عليه رب العالمين عالمين تربي قولها لا شريك له لله إلهي أمسقنات وبذلك كاسا أمرت الله أمري وأنا أنقنا من المسلمين كمده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركز فاتحة بلاغية مركز تعود كبو الله إيمانية لكن والسنة تعود ككر الله مقاضي هوس بالله أورنية صلاة دي جهري تاكله أعوذ بالله من الشيطان هوس بقولها يا غف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة واغرنا ثم يقرأ واغرنا السورة سورة بكدرية الله أكبر بولي مكان والركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ساسولين سبحان وحى نزهان ربي جيبان نزهان ربي العظيم وينا وبحمده حمده سمهدي سحالا كدهانه 3 مرات 3 قور بورني سمع الله لمن حمده سمع الله تقبل الله إلهي وأقبل لمن حمده وقفكم هذه ربنا يا ربنا ربنا لك الحمد مهد باكو سغنات ملء السماوات سمد مجد مهد يا كو سغنات سماوات كمجوده وملء الأرض أرض مجده وملء ما شئت waxaa doonto oo min shay bacdu samaawaadka iyo ardada wixii ka soo haro aad doontay bugood yani in buuxiso waa oo xamdiha ilaahu ku sugnaad saasuu leeyahay sami'a Allahu liman hamida wa rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du saasuu leeyahay Allahu akbar saasuu leeyahay markaa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa sujudi wa sujudi سبحانه وحى نزه ربي قال لها الأعلى وبحمده حالا كنا 3 مرات الله أكبر وصوك عيا مركز سجودي بكسو توسي ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني تازولي ربي يا ربي قيو اغفر لي داف وارحمني نحرس واجبرني إله إكب نسقانت عبادتي إيقا شيء وحي قال نسقام إله إيكب وارفعني إله إكريا وارزقني إله إرزاق واهدني إله إهانوني وعافني إله إعافي واعف عني إله إسكك عف ساسو ليه لبدا سجودات قليل دعاء وكل عيسى الفير انتاسو إلهي كبريا الله أكبر بلا سجود لباد بوها وني مركز سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات 6 قرب لي فهذه الركعة هالركعات بوها تنقوط المابي وتوى الركعات ويفعله سمينيا في باقي الركعات ركعاته سوهرينا جميع ما ذكرنا انت ان سو شيغنا بو سمينيا الا النيه دي هي وتكبيره الاحرام ويا فهي ايد في الاولى ركعته كوباد ما كجرا نيه دي تكبيره الاحرام وان زادت هذه كزياده سلادي على ركعتين سلادي صدي لبا ركعه كبدنتahay جلس وفريسنيا للتشهد الاول وصلاه 3 ركعات ومغربكي iyo mid 4 ragcadood oo duhurkii iyo casirkii iyo cishihii ah waxay leedahay 2 atixiyad Soomaa jalasa uu fariisanaya litashahudil awli fayaqulu hulaha marka atixiyadkii baa lagu tilmaamay
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله تحيات كسائن أدواق رسول محايا له همزة كجرت همزة وصل بالله لما كالقوي همزة قطع معها التحيات المباركات الصلوات الطيبات والله ذكر لك ولا في عين سيده وناكسد وحوي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سائنها ترى فيها همزة وصل وي ولا سقطها التحيات السلام يالو المباركات أول بركي الصلوات نحرس يالو الطيبات وناق يالو لله إلهي بأسونا هذا السلام النبت قليو عليك دش هذاته أيها النبي النبي غنو ورحمة الله إلهي نحريسي سنة دش هذاته وبركاته وبركتي سنة دش هذاته السلام النبت قليو علينا دش هذاته وعلى عباد الله الصالحين أدومها إلهي ونكسن ودنا لها نبت قليو دش هذاته أشهد وحنقريا أن لا إله لا معبود بحق إله كلو حق لو عابدين نجري إلا الله واحد كما يعني وأشهد وحنقريا أن محمدا نبي محمد رسول الله رسولك إله التحيات وحيد هبينك النبي اللي عليه الصلاة والسلام صلاة هبينك النبي اللي بالوصف فرد الزوما وحيد أحمرتي نبي عليه الصلاة والسلام الرب جيس مركي مقامك وإلهي كلها اللي إيش شاهده إلهي وكو أركي لو صلاة الوصف فرد اللي مركو تجي سلامة وليمت إلهي بسلام التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله تاسو نبي إلهي بقى جوابه وعير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مركز النبي وحوج على دعاء إنه مؤمنين تلو ذاجيه يعني وخير كله لا مركز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تاسو نبي هذا نبت قليل دوش أنا ذهاته الدومها إلهي ونكسن ودنا دوش هذا أنت أمركي يعني إلهي النبي إسقاف سنو يراهن أهل السمه ملائكتي هالكاجوجي يا وحيد هذين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ستح على قيمات وتحياتكم يوكاكو بي هيو اللهم صل إله حريص على محمد الله أكبر بمركلي ثم يقوم وكعيا وتحياتك وراء أنت أكو أكده ثم يقوم وكعيا ويأتي بباقي ركعات صلاتي ركعاته أودي مناب مركا الله إيمانية لكن لا يقرأ ما أغريه ركعاتها الدنبه سورتكم أغريه بعد التشهد الأولي والركعة هورة لبض الركعة هورة مركي فاتحة للرمي سورة بالقدري أما آيات لا أخرين سما ركعة الدنب هدو مغرب يعني هلك ركعة قدام هذا عصر الظهر عشيين لبض الركعة قدام فاتحة بس ما لو أخرين يا سورة اللي أخرين سنة ما ثم إذا أتم مركو تام يلو الركعات ركعته مركو تام يلو جلس وفرست الجلوس الأخير فرق قدام ويقول حلي فيه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله رواية أو إمام مسلم ورنيه عبد الله بن عباس لقى ورنيه وأشهد أن محمدا رسول الله رواية عبد الله بن مسعود لقى ورنيه مسلم البخاري بيورنيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا وضوء ذكر ذا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبركة صلى اللي هذا إبراهيمية أيوكو أخرنا يا التحيات كالدنبوي اللهم صل على محمد إله أن حريص النبي محمد عبدك أدون كاجها ورسولك رسول كاجها النبي النبيها الأمي أميها نبي وحنا ما قرن جيرين وحنا ما أخرين جيرين سو حاول برينا بإله القرآن كسر دجي معجزة يطهى ونبي أمام بيطهى سو أخرنا ينبى القرآن كالكسر دجي مركز وحول بيسيري على هدو فريقانه oo wax barto oo wax aqrinayo waxay oran lahaayeen meelihii buu ka soo guursaday oo kitaabihii hore la soo dajiyay balaasu ka soo qortay dhilahay laakiin asoo waxba aqrinaynin yaanabi waxyiga lagu soo dajiyay mucjizo u tahay laakiin dadka kale oo dhan ummi hadii lagu yiraahdo cayb ay ku tahay ummi qof waxba garisay hooyadii u dhashay way qof waxba aan garanayn marka dadka kale cayb ay ku tahay nabiga laakiin mucjizo u tahay amaan bay u tahay way wa ala ali muhammadin nabi muhammad aalkiisa allah u naxariis wa azwaaji haweenkiisi wa dhurriyyati arurtiisi كما صليت إلهي وصاد أقول حريستي على إبراهيم النبي إبراهيم
وعلى آل إبراهيم نبي إبراهيم آل كيساد أقول نحرست وبارك إله وبركه على محمد النبي محمد النبي قال أمي أمها وعلى آل محمد نبي محمد آل كيس إله وبركه وأزواجه وين كيسي وذريته كما باركت إله وصاد وبركه على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين عالمين تدحدود إنك أدعو إله يو حميد محمود بعتاليه لما هذه مجيد ماجد وشرف لي اللهم اغفر لي إله إيداف ما قدمت وحن هرمريي وساس لي قف تعاد قدام بيسوي وكنت عايزه إله وحي ذنبي هرمري إله إيداف وما أخرت وحن دمري إله إيداف وما أسررت وحن سريت وقرصد إله إيداف وما أعلنت وحي أن لجهري أن ظاهرية أيضا اللي أركي أنسمي إله إيداف وما أسرفت وحن كحد قد بإله إيداف وما إله إيداف ذنبي أنت أدوه أعلم وأدوكت به ما مني حقي وحد يقول أكتب ذنبي وأنا إله إيداف أنت أدوه المقدم كي وحرمرياته وأنت المؤخر كي وحد مرياته إلهي بقى وحكى الهرمريون لا إله إله كلام جرو إلا أنت أدق مولي ربنا يا ربنا ربنا نو آتنا نسي في الدنيا الدنيا حسنة إله وناق نسي وفي الآخرة آخرنا حسنة وناق إله نسي وقنا إله نجا إلالي عذاب النار نار عذاب كذا إله نجا إلالي اللهم الله يو إني أعوذ بك إله وحن كام جنجليا من عذاب القبر قبرك عذاب كيس ومن عذاب النار نار عذاب كذا ومن فتنة المحيا نولش فتنة هذا والممات جيرد فتنة هذا ومن فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال في النديس علامات ساعتك يا علامات الكاملة صوب بعدون إله لماذا شيئا ذاتك فتنين إله كاف الندي إذا كان من قال إله يبدأ ساس قف كده عيسى يا صلاة آخر كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك عليه صلاة دي وكبح مرك قف وصلاة دي وما يستر صلاة دي وما يستر بالوسط وكمله ومرك صلاة الشروط هذه هي أركان هذه هي مبدلة وحي برنا يساعد أوجا إلى السمرك اللي جبره يا هذين صلاة موقال كذي تلمان هذه بالله جاد اللي قبل الله إلى آخر كذي وهذين اللي قروه كاسوية وحل لوجو مجعابه كتاب كان سفينة الصلاة ودونتي صلاة صلاة دي أول سورية أو دون سارن وين دون سارن السفينة سارن بركساس لوجو مجعابه وصلاة دي أول ما يسترن وكملان تاعي إن آخر سوي هرت هذا إن دقتوي مركب براتو أدي سا هرت هذا وحي ودن حفظ السن يا صلاة دي إن ودال الدنيا وصلاة كاملة كلها تمام مركز وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم الله نو أنفع كتاب كاس كوي برت كل انتفاع الله نقدره إلهي إذن كي كوي انتفاع المصنف قرئ شيخ كتاب كقرئنا الله نحرس إن شاء الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الفاتحة